axmedoobe tegiddiisa garowe maxay ka dhigan tahay laga soo bilaabo May 2022 xiriirka siyaasadeed ee Puntland iyo Jubbaland ayaa xumaa iyadoo ahayd dhacdo ka dhalatay hurgumooyinkii doorashadii dadbaneed ee 2022 inkastoo ay hadda dhinacyadu toddobaadyo ka hor heshiis rasmi ah ka gaareen xaalka siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha dhexdooda haddana waqtigan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam u socdaale garowe oo halkaasi qayb kaga noqdo dhaqdhaqaaq siyaasi ay wada jir mar kale u bilaabayaan labada dawlad goboleed waxay ka dhigan tahay in Axmedoobe laba qodob ku jabiyay dhinaca fiila Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya waxay aad u gadeen Axmedoobe safar karin oo gudaha dalka u kala socdaali karin ilaa uu aado Kenya mooyaane taasi safarkan ayaa beeninaya warankii soo qabashada ayaana ka dhignaanaya mid aan dhab ahayn oo hawada Soomaaliya inay maamushay Muqdisho ay si caadi ah duulimaadkan u safraya dhinaca kale dawladda federaaliga ee Soomaaliya waxay sheegaysay oo ku naaloonaysay in xiriirka Puntland iyo Jubbaland uu yahay mid aan dib isugu soo laaban doonin laakiin safarkan ayaa taa tirtiraya taasoo macnahan ka dhigan in fiila Soomaaliya aagan ay si xun ugu jabtay marka lagu qiimeeyo furimihii kala duwanaa ee Gada iyo Raas Kamboni oo labadaba lagu hungoobay